horta marxuumka Allah naxariisto ammaan badan oo caawan idhaahno wuxuu ka jecel yahay duco badan oo intaan joogno u ducayno caawa iyo inta inaga dambaysaba in qofkii wax qabtay markii la arkaba ama la xasuustaba loo duceeyo oo inteena kolba ka hadhay waa runtoodu macallinimada rasmiga professorku waa in yaro title yaro faranjiimo ku ugu yeero dadka macallinku ardada markaan ku waanayna aan leeyahay anu macallin baan ahaa waliba qaybta macallinimada teacher training I'm educational psychologist by training waxaan ku leeyahay ardada waxa oran jiray waray dhageysta hadda innaga iyo ambiyadiiba rusushiiba isku shaqo ah rasuul oo dhan macallin buu ahaa waan kala risaalad ballaadhnayno iyagu mid ballaadhan bay sideen oo ilaahay bashar ugu soo diray innagu waa mid yar oo kooban laakiin nabi maxamed cali salaatu wasalaam isma macallin buu ahaa marka profession ama shaqo lagu abtirsado ta ugu fiican waa macallinimo inta kalena iyadu ma ka farcamaan marka waa shaqo runtii fiican marxuumka maxamed Allah u naxariisto buuggaas lagu faahfaahin oo akhrisan doona insha Allah waxaan aad iyo aad ugu hambaliyanayaa dhalinyarta jaamacadda Hargeysa halka soo fadhida oo isxilqaamay oo abaal uga dhigay inay bulshada u soo bandhigaan wax inta ay ka ogaayeen iyo shaqadiisa macallinkoodii annaga kuwa iyaga wali ma bilaabin xaqi kuwii hore iyo kuwa dambe bilaabi doonaan u malanaya kuwii hore waxa ka fadhiya maxamuud xasan saacad baa halka ka fadhiya oo macallimiintii camuudan ku barbartay ahaayeen anigoo markaa 2 sano joogo Mareykanka soo noqday isaga iyo musabixi oo isaga kalaas ka horeeyay iyo lodkaas ay ahaayeen waliyahan dambana waa gadaan dhalkii waa colkii dambe ciidanka halkan soo fadhiya maanta iyaguna la suleeya waxa runtii aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waa macallinimada abaalkeedii idinku waa soo inta kareyseen allo macallinka ay kaaltii baad ka dhigteen buuggaana waan iibsan doonaa insha Allah ilaa 40 koobi baad jaamacadda Camuud noo geyn doontaan si maktabadeeda si aan iyadana ugu dhiiri galino ardadana u akhrisato waan maxamed anigu berigdee yaraan maan ahayn waan ka weynaa berigaa oo macallinka Walter Stewart iyaga u dhigi jiray halkan dugsiga sare ee dhiga ugu jiray la sheekh baan ku jiray oo de maxamed waa ka weynaa sheedan say iska arkaynay Soomaaliland aad uma kala weyna dadka iskuuladu tacliinta marka la bilaabay sheeday iska wada arkaysay annagu madaxweynaha hadda jooga iskuma aanan soo gaarin intermediate markaan waxa ka baxay markii aan ahayn Camuud ay secondary ku jireen ayay annada intermediate kan ku jiray sheedan ka arkayn maxamed iskuma aanan soo gaarin Allah u naxariistay laakiin waxaan isu soo gaarnay shaqadii macallin baan u ahaa markii uu la foolo galay sanadkii u dambeeyay ka baxayeen waliba iyo sanadkii ka horeeyay maalintii ay qalin jabinayeen March 73kii xafladii lagu qabanayay qoladii u horeysay la foolo ka baxday aniga master of ceremony ahaa qabanqaabada ku shaqalaha runtii kalaaskaas waa kalaas aad u firfircoon oo waliba reeyawdal ku badan yihiin ayaa isaga iyo أحمد جديو موسى أحمد عمريو الله نحرسته حسن داهر وسيئيو أيضا عين كاسة هاي لا مركيو وأنك عجيب نبدي سمركو شهادة غاطي إنك شقي رد له مرات سنة وكي حاجة نصوك عاية جناسك قلا بابورت علاج بيت الجوشور جدي نور الحلال كرات سنة رنتي جامعة هرقيسة مركي لفوري جامعة هرقيسة بعد ولا بس شرب لفوريو سجال مر لفوريو أفرتي وده يقول كذا أفرتي مالها warka dadkuna uma haysan odayaashu inay tacliin iyo waxa ku shaqeeyaan hore yarana qaadi weedo markaas madaxweynaha naxariista cigaal baa loo tagoolay baasha kale noo furan noo bismillaah February 20keedii labadii kun baa la furay oo 2 sano ka horeeyay marka in fact 3 sano ka horeeyay marka la eego ardayda la qaatay laakiin officially marka la furay waxa macallimiinta ka bilowday waxa isagoo Hargeysa ka dhiga jaamacadda Hargeysana waxaan ahayn 2 mataanuun baan ahayn maxamed Haaji Ibrahim Cigaal baa khudbada markuu akhriyay buu yiri jaamacadda Hargeysa furay ayuu yiri hadii aad jaamacad furaysaan
odhanina uun haddaad reer boorama la tartamaysaanna iska daaya haddii aad jaamacad dhaba furaysaanna camuud taga oo bal waxaad eegtaan intaa idinka horreeyeen 2 sano wixii ay khaladaad iyo samaynayeen iyo wixii ka foofeen say wax u qabteen casharada waa la kala bartaa soo weydii maalintii ku xigtay noo yimaadeen tiimkii Hargeysa maxamedna wuu la socday marka wuxuu ahaa horta nin sidii ilaahay nagu xadiiskii rasuulka dadka ku tilmaamay ku dhow oo ah khayrun naasi anfa'uhum linnaas dadka waxa ugu khayr badan ka dadka waxtarka ugu fiican walaal waa ka tolo كذا عادي waxa ugu khayr ايوه وصلنا قبل انا فرسمدayda aan ay u fiicnaan kulay ana taysa saare dadka waxa ugu khayr badan buu rasuulku yiri ka ugu faa'iido badan dadweynaha ay shaqada ugu fiican wanka dadka u shaqeeyay nin qalbi furan buu ahaa cid aan la colahayn waa intaan ka aqaanay bulshaawiya qabiilku aan u ahayn mabda iyo oo dadkan kooxda isku raaca ma ahayn nin waliba saaxiibkii buu ahaa ardaygiisu waa isku sanfurraano saaxiib uu lahaa macallinkiisana saaxiib uu lahaa odaygiisa iyo siyaasiga iyo sheekha iyo cidii bulshada qaybaheega kala duwan runtii intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin u furan qalbigiisu furan yahay isagoo Hargeysa joogo oo jaamacadda Hargeysa u shaqeeya annana halka wixii war jiray ee ama hadii uu arko heedar development oo Hargeysana soo maray waxna bixinay telefoon buu noo soo diri jiray qolada ka war hay annana waxbay nasiyaan ama jaamacadaha wax siiyaan ama oo nala talin jiray runtii marka wuxuu ahaa intuu macallinkaana saas u ahaa siyaasigana sidaa uu ugu dhaqmi jiray nin laba wajiila ma ahayn nin dadka u furan oo qabyaalad ku shaqeyn burintu ahaa oo sidii bulshada ugu shaqeeyay leeyay ugu shaqeyn jiray ragii uu ka duwanaa anigoo aan iga ahayn criticism intiqaad badan iga ahayn laakiin haddana de siday dadku u kala yihiin waanu sheego macallinku waa inuu dadka kala sheega waxa ay gooyaan xildhibaan markuu ahaana xildhibaanada imika jooga uu ka duwanaa runtii ama ku ay wada joogeen baan markaa ragna waa rag fujo tagay oo xagga u shaqo tagay ragna waa dadka dad u shaqeeyo xagga ugu tagay dadka fujada waad garanaysaa waa ninkii ciidanka ahaa ee beeraha dadka la ka shaqeyn jiray ninkani arrimaha gobolka uu ku fiicnaa dadkan u shaqo tagay hadday hay'ad tahay hadday xukuumadda tahay marka ay de laba shaqo hayay oo 3 shaqo infaaqayay mid waa taayimka ay ardaydu u soo bandhigtay midna waa tii xildhibaannimada midna waa tuu gobolkan u hayay ilaa alla halkana laga doortay oo ninkii taardanimadu macallinimadu waa shaqo u siyaada laakiin labadaan inta badan xildhibaanka ku ognahay waa ta gobolka iyo taheer qarana uu gobol walba u yahay wakiil ka yahay laakiin taa gobolka hadda arki maysid xildhibaan hadda joogo golaha wakiilka oo halkan awdal ka tagay oo arrin daba socda maalin bay ila yaabeen qaarkood wajidka dila iyo u dhaxeeya kala bayd ayaa intaan arkay intuu ila way dhibaysaa anaa sii mara jaamacadda sii martay dadweynaha sii mara waa arkay baashi oo inta nin contract la siiyay 3 bilood aan waxba ma 5 bilood aan waxba laga qaban wali xildhibaanaan u sheegan waa arrintaas oo maasina dawladda ku shaqalo way wadaa waraay dawladda contract bay si dabagal bay u baahan tahay حسن هذا ما كعيس حسن هذا عبدي أيان سرعنا ورنا ودي وزير كي أولها جود بانو تجني يوكي قرصين تان روب كي مارش باصوص هذا واجينوري روب كي باصوص هذا شيت كهداني ما كلا بلعبين سنة دم بلا بلعب ما يلا سبتمبر لا بلعب مايو وزير اللي وياك حيوها كي مدحتونا كان هيرس بانو تجني سعد علي سرانو تجني نيجي كونتراك اللوير ولا قاعد هدانا هذا قول قارة معها لكن دبقال كاسوم هو بهان تاين هل كانوا قتقني وأنا ندي بيس حل بالله النواة شو كانوا الدولة دا كل شغلة بين يلادين الدولة دين لو تقول لحسية وبهان تاين لينا مركا ورتني وحوا حل بالله كلا كدوان هذه ما كان موضوع جيل كيس كيس اللي يسوى ده تجي وأنرنتي فيلينو دا يرتان حسوسين ياي دور كدم به مركا واحد دور الرئيسان الحل بالله دور الرئيسان أنت الناس صاحرية رك الله ونحرسته محمد وكارنا ماشي ينوك إذن كعود كعيه
kuwa hadda jooganayna naga soo wada xereeya siyaasad kama hadlaya xuquuqda dadku ma ka hadlaya ta gobolka aari marka horta ninka saas uu ahaa nin waxay yiraahdaan carabi yaraantii beedad carabi oo la nool dhigay ayaa waxa ku jirtay annaasu sinfaan mawta fi hayatihim wa akharuna bi badn al-ard ahyaa'un dadku waa laba nooc mid isagoo joogaba dhintay oo jasadkuun iska socsada laakiin fi aakhiraan midna waxba ka qaban karin oo iska socdoon meesha waana inagu badan yahay iyo mid caloosha dhulka ku jira oo aakhira tagay laakiin still nool laano wuxuu qabtay wuxuu ka tagay baa jira maxamed dee wuxuu ka tagay haddaynaan wax kalaba eegin waa kuwa halkaas soo fadhiya runtii oo aan xasuus badanba aan u baahnayn oo waxa dabac badanaba la yidhaa dhalintaan la hadlaya takhasuska marka jaamacadda imanka ka baxdaan jaamacadaha laba arrimood baa muhiima kow waxa aad barateen sida maxadmaba ugu takhasus ugu dhabar adayga oo laabka uga shaqeeyo idinka wax idin soo baray inaydaan sida kale ragga qaarkood u boodboodin oo hay'adaha kolba tii lacag lagu boodin ee aad ka midha dhalisaan kolba wixii laydin soo baray kuwa inta kale weydin la wadaagtaa idinku idin soo eegmaya kuwa kale waa leegaya in mawduuca aad ku takhasusteen aad ka midha dhalisaan ilaa inta idinla gaadhayso waa kaariir anu 49 sano ka hor ayaan macallinimada bilaabay anigoo miyir qaba haddii halkii la igu celiyay ma kolena maxaad noqon lahayd macallin uma bilaab u noqon lahaa macallin baan dooran lahaa in yaroo kaftanaan malaha idaacadana way ga maqli qolaasi ma dhowr jeer baan ku celiyay in yaroo kaftanaan idin sheegiyo bari shaqada markaan bilaabay kalaaskan ku bilaabay waxa ahayd musabixiyo isaga iyo inan kalaan u yeedhay Axmed Darewe la oran jiray oo inankaasi wuxuu ahaa inan kabtankii kubaddu ahaa kabtankii xeegadu ahaa masaajidka isaga tujin jiray kalaaska waan ku gali jiray macallinimaan la jeclaada masaari macallin noqo muusana nin baxaan baxlo ahaa oo dhalinyartu kala minawari jiray oo sida dawladaha kulli cid baa ku xidhnaa ka dawladaha meesha camuudana principal ka ahaa maamulkana uu ku xidhnaa laftiisa oo annaga iyo ardayda ayuuna kala isu kaaya xidhi jiray labadii baan macallinimada muusa intuu sidaa eegay ayuu macallinimada sidaa ka tahay baad nagu waarinaysaa masaar ma xagga mushaarkaad ka hadlaysaa maasuul deewa kama maqla masaar waa baashu hoosta ka nooshaay macallin baasha qaat bari dhexdaa saarku macallin Sacuudiga wali daayar waan baasha soo taagay baasha hoosta ka nooshaay macallinimadu waxooga yaro cadha ay leedahay arday aad u cadhootad bari ilaawayso laakiin stress waxa weeye walbahaarka faraha badan leh ee sida siyaasi oo kale kolba habeenkii dhinac isku rogayaan taa ma laha baan ku idhi taa sheekada ma lahayd habeen aan seexanayn leedahay tolo barriki miyu codka ku siin ama miyu ku diiday ama waxa ku soo ama waxa marka waxa weeye taa shaqada dabad aydan runtii aydan ka leexleexanayn fiilkiina ee aad ka midha dhalinaysaan ilaa lagu yiraahdo waa specialist ku noqdayo aad wax ka tagayso ka daalina talabaadna waxa weeye waa inaad dadka wax uga tagtaa waa inaad wax waara dadka uga tagtaa oo lagu xasuusto maxamed iyo annagu waan ka tagnay deewaydinka soo fadhiyo idinkaan idinka tagnay annagu idinkuna xusi qabta Soomaalidu waa tan tilaada waari ma isla war ha ka haro in fact de warku waa laba nooc mid xun iyo mid sanba uu yahay war sani ha ka haro war fiican yahay idinka haro idinkana bulshadana wax uga taga sida maxamed ba uga tagay idinkoo kalaan mar labaadna waxaan ku soo goobi in sida maxamed ba waan uga tilmaanay inteena kalena inaynu markaynu mas'uuliyad qabanno sida wax xasuusanno isbedelkeen uu noqdo mid inta badan iijaabi oo positive oo wax taraya haddaan dadweynaha u shaqeyno si daacad ugu shaqeyno haddaan daayarta ugu shaqeyno in sin daayar ugu shaqeyno daacada haddii aan gobolka u shaqeynayno inaan xasuusanno aynaan sida kuwa hadda joogunayna fujo tagin aakhirna waxaan ku soo gabagabayn mar labaad iyo mar saddexaad iyo mid afraadna ha loo duceeyo inta aad kari kartaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh